Dowladda Denmarka ayaa Imaamyada Muslimiinta dalkaasi ku nool ka mamnuucday in ay go'aan ka gaaraan arrimaha guurka. Go'aanka Dowladda Denmarka ayaa ku dhawaaqday waxa si weyn uga cadhooday muslimiinta dalkaasi. Dowladda Denmarka go'aankeeda waxay u sababaysay in looga hortagayo shariicada Islaamka in dalka laga hirgeliyo isla markaana xuquuqda haweenka muslimka lagu ilaaliyo. Haddaba sharciyaqaan Xasan Daahir Ibraahim Saajiin oo ku nool magaalada dalkaasi Denmarka oo khadka telefoonka igu waramay ayaan ugu horreyn weydiiyay arrintani waxa ay salka ku hayso. arrintan hadda salka waxay ku haysaa nin imaam oo magaalada caasimadda labaad ee Denmark ah ee laga soo qoray inuu dad au kala furayay si khalad u kala furay si ay u arkaan cadaanka Denmark jooga ama dawladdu si u arkaan ay leeyihiin gabadha ma loo hiilin iyadoo rabta in la furo. Marka maxaa hadda keenay in imaamyada loo diido inay go'aamiyaan arrimaha furiinka ee muslimiinta dhexdiisa? hadda siyaasadda socota Denmark khaasatan oo ajnabiga islaamka aad iyo aad ugu soo fatahday taas ay keentay in maxayda loo soo jeestay imaamka markii horeba uu furi jiray hadda waxa weeyaa muslimkii baa loo soo jeedsaday marka warku baa la cadeystay macni wax hore dagaal ugu jiro siyaasadda baa hadda la soo bandhigay ama la qaawiyay. markii hore yaa go'aamin jiray ama yaa go'aan ka gaari jiray arrimaha furiinka ee muslimiinta Denmark? barigii hore waa la ogaa waligeed dadka maxayda muslimka imaamkooda u tagi jireen oo ay imaamku marxaati furu kala furi jiray ama sida islaamka u guuri jiray waa la ogaa taas dadka oo dhan waa ka warhay dawladdu dhan ka warhaysay laakiin hadda waxa loo bedelay sharciyan ama waxa loo bedelay shariica waxa la yiraahdo islaamka ku salsan baa dagaal lagu la shiraa waxa leen shariica ayaa la wadaa shariicadii baa la qaawiyay muslimkii marka in la dagaalamna shariica bay ku leeyihiin saasi ku leeyihiin shariica lagu ma amri karo wadankayaga marka hore waa loo oqolaa hadda waxa isbedelay dawladdu baa qaawisay wixii dhan. marka dooda xukuumadda Denmark ay soo jeedinayso marka makiiska aad ka dhawaajisay ay leeyihiin gabar furiin doonaysay oo si khaldan marka ay u maareeyeen arrintan miyay salka ku haysaa mise xukuumadda dood kale ay soo jeedinaysaa arrintan ku saabsan? taasay salka ku haysaa walaal laakiin way sii cadeeyeen bas maadaama taas soo baxday urur gabadh dumara oo ajnabiga ay maamushay oo ama ay ababushay oo u doodo dadka ajnabiga dumarka ay leedahay lama furo markay rabaan inay furitaan ay doortaan muslimku way u diidaan rag way u diidaan markaas taasay sii daba raaceen gaaladii ay ku leeyihiin ama cadaan ku leeyihiin maxay sharcigaas wadankan Denmark laguma dhigi karo markaas waa inaan u hiilino dumarka muslimka oo aanu xoriyad siino oo aanu ka furno maadaama ay ragii muslimka ay rabin la furo dumarkii. marka qaab noocee ayay markaa muslimiinta Denmark uga falceliyeen arrintan? walaal hadda muslimiintu aad bay uga maxay way ka hadleen si kale oo falcelin ma jirto Denmark muslimku dadka muslimiinta ama maxay wadaadada ama masaajidaduna iskuma xidhna organization ma haystaan u hiiliya sida yuhuud oo kale u hiiliya markaas qof baa ka hadlay oo Facebook meelaha ka qoray oo yiri waa khalad waxan iyo markii horena saldhiga waxa lagu bilaabay arrintan la soo bandhigay been bay hayd may hayn iimaanku u rabay in kala furo laakiin waa la siyaasadeeyay baash. ma jirtaa marka wado u furan oo dhinaca sharciga ah oo muslimiintu amaba imaamyada muslimiinta ee dalkaasi Denmark arrintani ay go'aanka dawladda ay ku joojin karaan? walaal way fududahay sharciga Denmark ama dastuurka Denmark waxa ku qoran qof kasta xoriyadiisa iyo diintiisa xoriyad u leeyahay ilaa ay inday diintu aanay ka hor imaneyn wadanka dastuurka u yaala ama ay wadanka arkixiso ku ahayn marka wax weyn ba halkaas uga shira maxay dalool weyn ba uga shira marka dawladda dhinacooda la eego haddaan muslim ahayn iska celino laakiin imaamadii baa la rabaa inay fahmaan wadanka oo ay la jaan qaadaan iska celiyaan sharciyada u garanayaan iska celiyaan marka fudud in la iska waabiyo taas. ugu dambeyn marka haddii xaalku uu sidan yahay maxaa u qorshaysan marka hogaamiyaasha muslimiinta Denmark amaba la gudboon? wallahi aniga hadda weydiin lahay shaqteen waxa la muslimku inay diintooda ku adkaadaan ta ay dhahdaan sida yuhuud oo kale u kala furto dadka ama u soo guursadaan anagu xaq u leenahay iyo si Christmaska kiniisadda u guursadaan xaq u leenahay markaas ma jibinayna sharciga dawladda u yaala markaas in laga siyaasadeeyo maaha laakiin dadkii baan muslimku isku xidhnayn marka in muslimku isku xidhnaado oo ay iyagu ay meel ka soo wada jeedsadaan oo mid kastaba dhinac u hadlin oo shiicadu dhinac u hadlin oo sunnida dhinac u hadlin baa la rabaa marka taasa dhibaatada ay xalin kartaan siyaano. kaasi wuxuu ahaa sharciyaqaan Xasan Daahir Ibraahim Saajiin oo jooga dalka Denmark oo khadka telefoonka igu waramayay.